safar dheer ayaa lala soo maray birta qiimaha leh ee Afrika balse badankoodu waxay ku dhamaadaan meeshaan oo kale waa xarun oo dahabka qaaliga ah ay ka buuxaan sidaan Hindiya waxay ka tahay caadi Afrika dahab ayay soo saartaa midka cayriin waxayna qodataa dahabka way isku dayaan wax badan ayay u dhoofiyaan India iyo qaybo kale dunida ah in yarna way la soo degaan macdanta iyo luulka qiimahooda waxaa lagu xisaabiyaa qiimaha dahabka waxayna ka kooban yihiin 7% wadanka dhaqaalihiisa balse dahabka aan la shiilin qiimo badan ma laho faa'iido badanna ma laga heli karo hadda alaabta 2% ayaa Afrika dib loogu celiyaa Hindiya waxaa soo gala 84% oo ah dahabka aan la shiilin birta qaaliga ah iyo dhagaxa kumanaan meel oo macdan lagu sameeyay Hindiya sida camal midaan oo kale oo ku taala Ahmedabad ee gobolka Gujarat dhalinyarada waxay isticmaalayaan technology casri ah sida ay soo saarka u badiyaan So these guys are very hagaag raggan waa caqilin xirfadan dhiigooda ayay ku samaysan tahay waad dhihi kartaa way la dhasheen xirfadan wayna ku dhex barbaareen dahabka jiilka cusubna waxa ay baranayaan teknolojiyadda cusub anagana si caadi ah ayaan 3D u adeegsanaa dhammaan waxa uu u baahan yahay soo saarka dahabka shirkadda Plat Africa waxay bilaabeen tartanka naqshadaynta sida ay kor ugu qaadaan samayska dahabka ee Afrika kuwa tartanka ku guuleysta waxaa la geynayaa Hindiya si ay u soo bartaan sida Hindida dahabka u naqshadayaan waxaan ogaaday in dahabka la xidhaa uu kolba ku xidhan yahay dadka da'diisa ama dadkaasi halka ay ku nool yihiin iminka dahab aad ugu qurux badan ee dalkan Hindiya in marka Afrika la geeyo aanay dadku aad u cajabin laakiinse haddii labada fikradood la soo dhaweeyo waxaa dhacaysa in laga dhexelo fikrad fiican mar walbana technology-guna isagoo halkiisa ku socda oo farsamadu isbedelaysaa farsamada dhabtiiba hata mashiinadu sameeyaan ee waa ta gacanta lagu sameeyo mar walba Sylvester wuxuu sheegay in hanaanka ay si tartiib ah u balaaranayaan balse shaqo ayaa laga wadaa xiriirka ka dhaxeeya Hindiya iyo Afrika waxaana loo maleeyaa inay ganacsi kala duwan ka imaan karo sanadaha soo socda